إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله إياهم من الضلالة وبصرهم من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أما بعد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وقضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إخواني نفتيدي نفيه نوحن صدر دار منا إلهي سبحانه وتعالى إن لقى عبصده ولقى بقه سيد إلهي سبحانه وتعالى ما يلفر بدنه كتابكيس كمذا وكتل مامي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي سبحانه وتعالى وحلي يدتك إيمانك لقاه ليو ألا كعب صدى وكبق هنرد مننا يدنكم مسلمين وأوهو قانسا مويان إلهي سبحانه وتعالى وحلي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صحيقات waxaad ku sahay qaadataan adduunkan aad kala tagtaan oo aakhiro ugu sahay qaadataanna waxa uu wanaagsan alla ka cabsiga iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad ka cabsataan walaalayaal khudbadeena maanta insha Allah ta'ala waxaynu ka dhigi doonaa laba qodob qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa xadiid kamid ah xadiidta nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo qayb kamid ah aynu qaadanayno qaybaha kalena aynu jumcooyinka dambe insha Allah ta'ala aynu dibdhigi doono qodobka labaadna wuxuu noqon doonaa qadiyad ama arin taagan waa arinta ka wada warhaysaan oo ah Filistiin ama Baytul Maqdis iyo warkiisa ayaynu wax yar insha Allah ta'ala dul istaagi doonaa xadiidka hadaynu ku horeyno xadiidka waxa soo warinaya saxaabiga la yiraahdo Ubadah ibn Samit wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri waxaad ii dhamaan qaadaan oo aad ii ballan qaadaan lix shay inaad ilaalinaysaan oo aad la imanaysaan aniguna hadii aad arrinka ii ballan qaadaan oo aad ka soo baxdaan waxaan idin ballan qaadayaa inaad jannada galeysaan oo naarta aad ka badbaadaysaan lixdaas shay maxay yihiin shayga koobaad nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay runta sheega oo runta ku dadaala marka aad sheekaynaysaan ama aad warramaysaan waa qodobka koobaad qodobka labaad
nabigu wuxuu yiri haddii aad wax ballan qaadaan oo aad cid wax u ballan qaadaan ballanta oofiya oo sideeda uga soo bax qodobka saddexaad nabigu wuxuu yiri haddii laydin aamino oo wax laydin ku aamino waxaasi wax walba noqon karaan sideeda waxa weeyaan u guta amaanada oo amaanada sideeda u ilaaliya qodobka afraad nabigu wuxuu tilmaamay waxaad xifdidaan oo aad ilaalisaan furuujtiin iyo xubnihiina taranka haddaad ragtiin iyo haddaad dumartiinba qodobka shanaad nabigu wuxuu yiri waxaad ilaalisaan aragiin oo waxa weeyaan aad ka ilaalisaan xumaanta iyo maxaarimta qodobka lixaad nabigu wuxuu yiri qacmihiina laab oo qacmihiina ilaaliya afarta qodob ee dambe insha Allah ta'ala khudbooyinka dambe inuu kaga hadli doonaa laakiin labada qodob ee hore ayaynu maanta dul istaagaynaa qodobka koowaad wuxuu yahay walaalayaal nabigu xadiidka inuu ku tilmaamay in warka laga run sheego oo qofku hadduu war sheegayo siday wax u jiraan ee ilaahay ku og yahay oo waxa weeyaan uga warramo runtuna ahmiyadeedu aad bay u weyntahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu isku tilmaamay inuu run ku tilmaaman yahay runtu waa tilmaamaha ilaahay bay ka mid tahay sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu tilmaamay waman asdaqu min allahi xadiitha waxa weeyaan yaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka run sheeg badan hadday war noqoto ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidna kama run sheeg badna waman asdaqu min allahi qiila ilaahay subxaanahu wa ta'ala yaa ka run badan xagga odhaahda iyo hadalka marka aayadaha iyo aayado kale ama adilo kaleba waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ku tilmaaman yahay runta uu ku tilmaaman yahay runta sidoo kale waxa ku tilmaamnan anbiyadiisa iyo rusushiisa iyo dadkii wanaagsanaaye ilaahay u soo dhiibay diimaha u soo dhiibay si ay u gaarsiiyaan dadka ay u gaarsiiyaan ayaguna waxay ku tilmaamanayeen run bay ku tilmaamnaayeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi ibraahim buu ka warramay markaas wuxuu leeyahay wadkur fil kitaabi ibraahiima innahu kaana siddiiqan nabiyya nabi maxamedow waxaad ka warantaa nabi ibraahim ka waran wuxuu ahaa waxa weeyaan mid run sheeg badan oo run lowwa oo waxa weeyaan nabi haddana ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka warramay oo kitaabkiisa uu ku sheegay yuusufu ayuha as-siddiiqu yuusufkii runta badnaayo ama runta lagu yaqaanayo wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu ku tilmaamay hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursaluun waxa weeyaan arrinkani waa arrinkii ilaahay noo ballan qaaday dadkii muuminiinta baa hadlaya ilaahayna uu ka warramaya waa arrinkii ilaahay noo ballan qaaday rusushii iyo ergeydii xagga ilaahay ka socotay ee arrinkani inuu sidaa u dhacayo nooga warrantayna run bay sheegeen marka tilmaanta labaad ama qodobka labaad ee runta ahmiyadda ay leedahay ku tusinaya waa in anbiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray ay runta ku tilmaamnaayeen waxaa qodob saddexaad ah oo ku tusinaya ahmiyadda runta ay leedahay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka muuminiinta u amray inay runta ku dadaalaan oo ay runta la yimaadaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin dadka iimaanka laga helayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada oo ilaahay ka baqa waxaanad la macnoqotaan ood la jirtaan dadka runta sheega ee hadalkooda ka run sheegaya ee ficilkooda ka run sheegaya kuwa ka mid noqda buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wa sallam dadka muuminiinta buu amray runta markaas wuxuu leeyahay calaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna waxaad ku dadaashaan runta ku dadaala runtu birriga iyo wanaagga idinku hanuuninaysa birrigaasina wuxuu idin kula aroorayaa oo idin geynaya jannada iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala raalli ahaanshihiisa runtuna walaalayaal waxay galaysaa meel walba waa galaysaa xataa waxa la kala iibsanayo in laga run sheego nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay albayi'aani bil khiyaari ma lam yatafarraqa
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما labada wax kala iibsanaya wax kala gadanaya khiyaar bay leeyihiin wixii ay kala gadanayeen ay ku kala noqdaan inta ay wada joogaan ee aanay kala tagin nabigu wuxuu yiri hadii ay run ka sheegaan oo mid waliba waxa uu ka kale siinaya uu ka run sheego oo sida uu yahay uu tilmaamo waa loo barakaynayaa kala iibsiga laakiin haday been ka sheegaan oo ay qariyaan ceebihii ay qariyaan waxa laga tirtirayaa barakadaas shaygu uu lahaa ayaa laga tirtiraya kii maalka qaatayna waxa weeyaan maalkii wax badan u tari maayo kii shayga waxa weeyaan qaatayna shaygii wax badan ku intifaaci maayo runtu walaalayaal muhiimadda ay leedahay waxa ku tusinaya qofku hadii niyadiisa uu ka run sheego amal badan bayuuna qabanin oo yaanu la imanin in waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii amalkaas uu niyeeyay niyadiisu haday dhab tahay weeye la yimi oo kamid dhigayo oo uu ku darayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin ballaqahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi hadithka sahih muslimka ku yimi qofka ilaahay weydiisa shahaado inuu ilaahay shahaado uu siiyo weydiisigaasina uu dhab ka yahay oo been iyo hadal aanay ka ahayn kaliya ilaahay wuxuu gaarsiinayaa dadka shuhadada ah ee jidkiisa waxa weeyaan u shahaado qaatay manaasisha iyo boosaskay degaan ayaa isagana la dejinaya hatta hadduu ku dhinto firaashkiisa iyo gogoshiisa oo dagaalba aanu ku dhiman ahmiyada runtu ay leedahay ayaa xadiidkaasina uu ku tusinaya runtu walaalayaal adduunyo aakhirada qofka way anfacaysaa oo waxa weeyaan waxbay u taraysaa sidaa darteed inaynu ku dadaallo waa shay waxa weeyaan aad iyo aad u muhiim ah waana qodobka koobaad ee nabigu xadiidka uu ku tilmaamay qodobka labaad walaalayaal nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay wa awfu idha wa'adtum oofiya wixii aad ballan qaadeen oo sideeda waxa weeyaan u bixiya ayuu waxa weeyaan tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii la ballan qaaday inaan laga bixinna waa tilmaamaha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ilaahay subhanahu wa ta'ala ballanta kama baxo walan yukhlifa allahu wa'dah ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu ballan qaado sideeda ayuu waxa weeyaan u oofiya sidoo kale waxa weeyaan ballanta oo la oofiyo waxay ka mid tahay anbiyadii ilaahay soo diray tilmaamaha ay ku tilmaamnaayeen ayay ka mid tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay wadhkur fil kitabi ismaaciila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ay maxamed waxaad ka warantaa nabi ismaaciil ka war maxaa laga waramaya wuxuu ahaa waxa weeyaan sadiqal wa'di mid ballanta karun sheega oo wacdiga iyo waxa weeyaan ballanqaadka dhabeeye ayuu ahaa sidoo kale wuxuu ahaa rasuul nabiya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo diray ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta wuxuu ku amaanay inay yihiin kuwa ballanta oofiya wal muufuna bi'ahdihim idha aahadu wa kuwa ballanta oofiya markay wax ballan qaadaan waa dadkii muuminiinta ahaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amray inay waxa weeyaan ballanta ay oofiyaan wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'uula waxa weeyaan ahdiga iyo ballanta oofiya ballanta waa la isweydiinaya waana la iska xisaabinaya buu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaam hadith ibn umar waxa ku sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu yiri idha jama'a allah bayna al-awwalin wal akhirin marka uu ilaahay subhanahu wa ta'ala soo aruuriyo kuwii hore iyo kuwa dambaba oo ban la isugu keeno maalinka qiyaame waxa weeyaan la taagaya mid kasta oo ballanta waxa weeyaan ka bixi jiray waxa laga kortaagaya calan ayaa waxa weeyaan laga kortaagaya oo la leeyahay taasi waa ballantii uu ka baxay fulaan ama waa ballan buriyadii uu sameeyay hebel oo ina hebela waa fadeexadeyn la fadeexadeynayo weeyaan xadiithu anas waxa ku sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu yiri
laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan ma laha qofka aan ammaano lahayn walaa diina liman laa cahda lah diinna ma laha qofka aan cahdi iyo ballan lahayn sidaa darteed walaalayaal waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaallo waxa weeyaan ballanta iyo ilaalinteeda iyo in waxa weeyaan laga soo baxo aad iyo aad bay waxa weeyaan muhiim u tahay waana waxyaabaha jannada lagu mutaysanayo weeyaan waxaynu ku soo gabagabaynaynaa labada qodob ee xadiidka maanta aynu ka soo qaadanayno xadiid uu soo warinaya Cabdullah ibn Aamir wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa gurigayaga yimi anigoo yar oo aan weynayn hooyaday baa guriga joogta dabeetana waxaan isiri waxa weeyaan dabada u bax si aan u soo ciyaaro dabeetana hooyaday baa waxay igu tiri hoo aan ku siiye ama kaalay aan ku siiye dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu eegay saxaabiga hooyadii ayaa wuxuu ku yiri maxaad siinaysaa markaas waxay tiri waxaan siinayaa timir baa siinaya markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hadii aanad siin lahayn waxa weeyaan waxa lagu qori lahaa been ayaa korkaaga lagu qori lahaa adarteed xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa xataa waxyaabaha yaryar ee caruurta lagu maaweelinayo inaan laga been sheegin ee runta waxa weeyaan lagu dadaalo nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa kii xadiidka kale ku lahaa waxa weeyaan runta ku dadaal xataa haddaad kaftamayso ama waxa weeyaan qof aad la kaftamayso runta ku dadaal buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay labada arrin marka in lagu dadaalo waa laba arrin oo aad iyo aad muhiim ah waana waxyaabaha jannada lagu mutaysanayo afarta arrin ee kalena insha Allah ta'ala khudbadaha dambe ayaynu laba isu raacin doonaa waxaynu insha Allah ta'ala maanta walaalayaal dul istaagaynaa oo qadiyada labaad ama qodobka labaad uu noqonaya ee waxa ka wada war haysaan oo iclaamka iyo baraha bulshadu ay ku wada xiriidho waxa weeyaan maalmahan labadii cishay ugu dambeeyay aad uga soconayay arrinka waxa weeyaan Masjidul Aqsa oo duwalka gaalada sida Mareykanka oo kale ay ku dhawaaqeen in waxa weeyaan ay leedahay Israa'iil ama caasimad waxa weeyaan uu noqonayo arrinka noocaas ah waa arrin waxa weeyaan halistiisa leh waxaynu dul istaagaynaa Masjidul Aqsa ahmiyadda uu u leeyahay dadka muslimiinta ah ayaynu wax yar insha Allah ta'ala dhowr qodob aynu ka tilmaamaynaa qodobka koobaad walaalayaal masjidka isaga ah wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay inuu waxa weeyaan barakaysan yahay isaga iyo hareerihiisuba ay barakaysan yihiin في سورة الإسراء وحت المام إلهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وحمان كان سهن الله أدون كيس وحويا قوريسيي ونبي محمد وكقوريسيي مسجد الحرام إلى أوجي مسجد الأقصى مسجد كاس وآن بركيني هريرهيس سونا بمعنى وبركيسين أي معنه أدعيا وقضبك كوباد وادول بركيسن وإلهي سبحانه وتعالى بركي وادول طهرا وإلهي سبحانه وتعالى طهري يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وحويا وادول إلهي سبحانه وتعالى طهري ويا وأهلكي إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد انتو ككحيي مكة قورها بينا وقيي وحويا مسجد الأقصى وقيي كبعدنا هلكا وحويا النبي كتو كذي هلكا وحويا لقد يلميي oo looga sii qaaday samaawaadka waxa weeyaan ila ta'usar raysa nabiga sallallahu alayhi wasallam la gaarsiiyay waxa kamida ahmiyadiis oo ku tusinaya in uu ahaa qibladii hore ee muslimiintu ay lahaayeen intaan kacbada waxa weeyaan qiblada loo wareejin waxa muslimiintu ay u tukanayeen baytul maqdis bay u tukanayeen muddadii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu joogay Makka ee dhowr iyo 10 sano ahayd iyo xataa markuu soo hijrooday Madiina uu yimi 16 bilood mise 17 bilood nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu waxay u tukanayeen iyo muslimiintu baytul maqdis bay u tukanayeen oo qiblo u ahay inta ka bacdi baa la wareejiyay qiblada oo kacbada waxa weeyaan muslimiinta loo jeediyay marka waa qibladii hore ee muslimiintu ay lahaayeen weeyaan
waxa kale oo ku tusinaya ahmiyadda uu leeyahay waa meelaha cibaado loogu safri karo ee saddexda ayuu ka mid yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid waxa weeyaan rarka looma xidho oo cibaado looguma qastiyo saddex masjid waxaan ka ahayn waa masjidul xaraamka iyo masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo masjidul aqsa saddexda waxaan ka ahayn cibaado waxa weeyaan looguma safro ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay bay ku tusinaysaa waxa kamid ah ahmiyadda uu leeyahay ku tusinaya in waxa weeyaan salaada lagu tukada ay ka fadli badan tahay salaadaha lagu tukado masaajidda kale waxaan ka ahayn masjidul haram iyo masjidun nabiy sallallahu alayhi wasallam oo madiina ku yaala ajarka laga helayaa intee buu leeyahay salaadahaas ama intee bay u dhiganta riwaayooyinka waa isku khilaafsan yihiin ahadiista qaar waxay tilmaamayaan 500 oo salaadood inay u dhiganto salaada kaliya lagu tukada ahadiista qaar waxay tilmaamaysaa 250 salaadood inay u dhiganto ahadiista qaar waxay tilmaamaysaa 1000 salaadood inay u dhiganto marka almuhim ujeedadu waxay tahay waxa weeyaan salaada lagu tukado masaajidkaas waa ka fadli badan tahay salaadaha masaajidda kale ama dhulka intiisa kale lagu tukado waxaan masjidul haram ama ka ku yaala ahayn iyo masjidu النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة كيالا وحن كأهين لبدا سنبا بمعنى كهرية الرماها صدني ولا ليال waxay ku tusinayaan مسجد الأقصى inay iska leeyihiin dadka muslimiinta ee muwaxidiinta ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliyay laakiin aanu ahayn meel gaala ay ku ciyaarto ama waxa weeyaan Ilaahay geyrkii lagu caabudo ama fasaad waxa weeyaan iyo munkaraad lagu dhex sameeyo inaanay ahayn ayaa waxa weeyaan halka kaaga soo baxaysa waxyaabaha inaga la gudboon arintaas waxay tahay duwalka ama wadamada waxa weeyaan awood leh ee awoodooda ay u saamaxayso inay arinta waxa weeyaan ka istaagaan oo waxa weeyaan hadalkooda la tixgelinayo oo waxa weeyaan qat'ul alaaqat inay sameeyaan ay wax soo kordhinayso iyo waxyaabaha la midka ah nusro noqon karaya maanta inay ugu nusreeyaan aad iyo aad bay muhiim u tahay waxa inagana inala gudboon maadaama tamarteenu aan iska sii badnayn tamarteena maadi ahaaneed waxaan u baahanahay inaynu u ducayno dadka muslimiinta ay halka lagu dhibayo iyo waxa weeyaan masjidkaas barakaysan waxa weeyaan gaaladu maanta ku ciyaarayso sida ay doonaan ay ka yeelayaan in waxa weeyaan aynu u ducayno in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka saaro oo dadka muslimiinta ah qacantooda uu ku soo celiyo oo waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu hiiliyo dadka muslimiinta ah waayo waxaynu ogsoonahay ducadu sida nabigu uu tilmaamay ad-du'a silahul muslim ducadu waa hubka muslimka weeyaan qofka muslimka hubkiisa weeyaan waxaynu u baahanay markaa inaynu u ducayno arintaana aynu ka xanaaqno dareen waxa weeyaan ayna geliso wararka kale ee iska caadiga ee 24 saacadood ka baxaya meediyaha aanay la mid noqonin ee dareenkeena aynu qaadano dadka muslimiintaana aynu la dabqano masjidul aqsa la damqano ayeen walaalayaal u baahanahay صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم وكلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم اجعل صفوفهم صفا واحدا متراصا ضد أعدائهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وعليكم السلام.